ilma ma leedahay, hooyo ma tahay, naas ma nuujisaa, uur ma leedahay. maanta waxaan rabaa wax yar oo inaka dhammaan iyo anfacayo inaan iga faa'iideeyo. sabaayada markasta markaa karinaysid ma kaa adkaataa, ma tuurtaa intaa qasto, ma ku cajistay xashitaankiisa. maanta walaashayda macaan waxaan ku wadaa sabaayad aad u jilicsan aana ka heli doontid. sidaad u aragteen halkaa baaquli ay yaalaa. baaquliga 4 koob oo bur ayaa ugu jira. 4 koob oo burka ah, burkana burka fixisada lah ma aha, waa bur plain ah. 3 qaado oo sokor ayaan ku shubay, 1 qaado oo yariis waxaa ku shubay cusbo, 3 qaado iyo bar oo batar ayaan ku shubay, 1 xabo ukun ah iyo biyo yar oo qandac ah. biyaha qandac inuu ku ahaado ayaa muhiim ah. markasta sabaayada biyaha qandac ku qaso, biyo qabow ha ku qasanin. hadaa aad rabtid sabaayad jilicsan oo macaan inay kaaga soo baxdo, waxaa ku shubataa subag ama batar. labada maasha Allah sabaayada aad ay macaan uga dhigaan. marka sidaad u aragtiin batarkii aan ku shubtay, kadibna biyaha tartiib ayaan ugu shubayaa. kadibna waad aragteen waan xashtay. muhiimada waxaa waay si fiican inaad u xashtid sabaayada daarta inay ku fiicnaato. sabaayada waa inay jilaac ku noqotaa markaa xashaysid. jilaaco laakiin lagama rabo oo meesha markaad saartid dhagdhagayso. muhiimadeeda waxaa waaye sabaayada inay jilaac ku noqotaa markaa qasaysid, si fiican aad u xashtid. markaa xashtid ayay ma aragtaa sabaayada maasha Allah ay noqotaa. sidaad u aragtiin waa duubtay. dadka ma aragtaa dhowr nooc ayaa loo kala duubaa. hadaa doontid gabaabina ka dhigi doontaa, gadaal ayaan iga tusin doonaa. haddana saas ayaan ka dhigay. marka muhiimada waxaa weeye sidaa doontid ayaa u duuban kartaa ama sida adiga u garanaysa. hadaa doontid sida aniga u sameynaya u sameyn kartaa. hooyada aad ay muhiim ugu tahay sabaayada inay cunto. sabaayada waayo naasa caana badan buu keenayaa. dadka badi ma ogsoono, laakiin sabaayada aad ayuu caano u keenaa. sidaan tiktokeyga ku sheegana funnel seed aad ayuu hooyada u caabiya. funnel seed aad ayuu naasa caanaha ugu keenaa. hooyada waxaa weeye hadday uur leedahay iyo hadday nuujinayso, muhiimada waxaa weeye cunto fiican inay cunto, cunto caafimaad leh inay cunto. muhiimada waxaa weeye hooyada subaxi quraacdeeda ma aragtaa si wanaagsan oo wacan inay u cunto weeyaan. haddii hooyada ay dhahdo maasha Allah sabaayad saad u aragtiin qurux guduud ayay noqotay, si qurux badan ay kusoo baxay. saad u aragtiin halkan gabaabinka ayaan ka dhigayaa. waan duduubay. markaan duduubay kadibna ma aragtaa gabaabin ayaan ka dhigi doonaa. muhiimada waxaa weeye hooyada subaxi quraacdeeda ma aragtaa si wanaagsan oo wacan inay u cunto weeyaan. haddii hooyada ay dhahdo maanta aniga quraacdi ma quraacanayo, habeenkii dhanna cunugii ayay nuujinaysaa. markaas oo kale hooyada naaska caano la-aan ayaa ku dhacayaa. caano badan cunugii kama helaya naaska. ilmahana saad u ogtihiin muhiimada waxaa weeye inuu naaska caanaha ka cabaa ilaa 2 sano. ilmahaas maasha Allah ilmo waxay noqdaan fariidiin oo maskax aad u maskax badan. sidaa la'alligeed waxaa u fiican ilmaha ma aragtaa inaad naaska nuujisiin ilaa 2 sano. adiga choice baa leedahay, laakiin kulley muhiimada waxaaba ilaa 2 sano. hadaarta cunugaada inuu ku noqdo cunug fariid oo wanaagsan oo maskax leh inuu ku noqdo. hadaarta naaska ku raaji. ilmahana waa vitamin ayay ka helayaan. caanaha ilmaha lagula ordayo markii la dhalo oo umusha ma fiicno. waa ina caanaha ka daaysiin, aan naaska siisin. oo laakiin ilmaha sanad markay gaaraan cuno ay ugu dartiin. cunaha iyo naaska asagoo cuntada cunayo meesha caanaha siin lahayd inaad naaska aasiisid. marka hooyada sidee naaska caana ku helaysaa way. hooyada haddii ay cunto cunin naaska caana kama helayso. muhiimada waxaa hooyada inay cuntada ay si fiican u cunto, si fiican inay u quraacatid, si fiican inay u qadaysid, si fiican inay u cashaysid. markaasaa ma aragtaa ilmahaadana healthy ay noqonayaan. maasha Allah asxaabta sabaayadena sidaa quruxda badan ayay kusoo baxday. waxaan rajeynayaa inaad ka heli doontiin. ha iloobina subscribe inaa ii saartiin. intaas iyo kulanka dambe waxaan leeyahay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.